الحمد لله رب العالمين dhammaan ardayda iyo cid walba oo markaa ku xidhan baa channelkeena waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamka bacdi saaka waxaan bilaabi doonaa kooras run ahaantii ku cusub dhankayga markaa youtube-ka oo aan hore u soo gelin kooraskan waxaa lagu magacaabaa medical surgical nursing-ku waa kooras u gaar ah ardayda markaa nursing-ka baranaysa ama kuwa ku shaqaynayaba ha ahaadaane medical surgical nursing-ku waa kooras kaaga baahan inaad markaa soo fahanto anatomy and physiology ayuu ku xidhan yahay fahanka labada anatomy and physiology aad soo fahanta oo aad soo baratay waxa uu ka caawinayaa inaad si fudud u garan karayso xanuunada markaa ku dhici karaya kooraskani waxa uu markaa sidaan soo sheegay gaaru yahay ardayda markaa nursing-ka ayuu gaaru yahay waana kooras laba qodobo waaweyn taabanaya hadday noqoto dhankii medicalka ee wixii daawo ah iyo hadday noqoto dhankii surgicalka ee wixii markaa qalin khuseeya ah kooraskan waxaa markaa idila socodsiin doonaa anigoo ah Xudayfa Ciidiid aan ku soo wada dhawaano chapterka koobaad banu saaka bilaabi doonaa introduction to medical surgical nursing horodhaca medical surgical nursing-ku muxuu yahay ayaynu isla eegi doonaa lesson-keena koobaad learning objectives-ka ahdaaftaan ku baran doona waxaa ka mid ah at the end of this chapterkani markuu dhammaado the student ardaydu should be able to wayna awood u lahaataa define inay qeexaan medical surgical nursing-ku muxuu yahay sidoo kale ardaygu waa inuu fahmaa the role and responsibility of medical surgical nursing doorka iyo mas'uuliyadda uu markaa uu ardayga medical surgical nursing-ka baranayay waa inuu fahmaa markaa doorka iyo mas'uuliyadda laga rabo describe the scope of practice in a different healthcare settings ardaygu waa inuu sharaxi karaya goobaha kala duwan oo caafimaad uu ka shaqeeyo kooraskan markaa medical surgical nursing-ku sidoo kale ardaygu waa inuu caddayn karaya the importance of evidence based care daryeelka markaa ku salaysan caddaynta ku salaysan muhiimadda uu leeyahay markaa qofka bukaanka muhiimadda uu leeyahay way introduction horodha define medical surgical nursing ayaynu qeexi doonaa medical surgical nursing-ku is the part of nursing waa qayb ka mid ah nursing-ka that takes care taasoo daryeelka la siinayo of adult patients-ka bukayaasha waaweyn kuwaasoo sig xanuunsanaya or ama recovering from surgery ama qalliinka bogsanaya bukayaasha waaweyn buu markaa medical surgical nursing-ku ka dhex shaqeeyaa haddii carruurta noqotona waxaa jira kooras gaar ah oo pediatriga la yidhaahdo oo ciyaalku isaguna ka hadla ayaa jira oo caafimaadka ciyaalka iyo cudurrada ku dhacay iyo waxyaalaha markaa lagu barto kaasna waa kooras markaa isagu gaar way this kooraskan ka hadlaynaa oo medical surgical nursing-ka ahi covers wuxuu daboolaya the most important area goobaha ugu muhiimsan ee markaa of a nursing-ku markaa ku shaqeeyo weer halkaasoo nursesku help ay caawinayaan patient bukayaashu get better inay wanaagsanaadaan by giving iyagoo siinaya medicine iyagoo daawo siinaya iyagoo markaa checking ku samaynaya their health caafimaadkooda markaa checking ku samaynaya iyo sidoo kale supporting iyagoo taageeraya them during their recovery bogsashadooda iyagoo markaa taageeraya camal waxyaalahaas buu markaa nursing-ku qabanaya markuu kooraskan markaa ka fargareeyo uu fahmo uu barto meelahaas kala duwan ayuu markaa ka dhex shaqaynaya daawadii buu bixin karaya caafimaadkii qofka ayuu jeegarayn karaya sidoo kale wuxuu ka taageeraya inuu qofkaasi hadduu xitaa qalliin ka soo baxayna bogsashadiisii ayuu ka taageeraya inuu markiiba bogsado medical surgical nursing-ku is a specialized area waa goob gaar ah of a nursing oo nursing-ka u gaar ah practices that focuses taasoo waxqabad ahaana diiradda saarta on the care daryeelidda of adult patients bukayaasha waaweyn daryeelistooda kuwaasoo experiencing soo bandhigtay way range xaddi aad u badan of a medical condition ee xaalad caafimaad hadday noqoto or ama recovering kuwaasoo ama ka bogsanaya from surgery qalliin hadday noqoto way these nurses haddaba nurseskaasi waa nursing-ka dee shaqadaa qabanaya haddaan ka soo hadlaynay are trained waa kuwa u tababaran to manage inay markaa maareeyaan patients-ka bukayaasha with acute qaba xanuunada markaa acute-ka qaba kusoo boodada ama kuwa chronic-ga qaba kuwa markaa qofka daba dheeraada ee weligiiba haya sida kuwa dhiigkarka iyo macaanka ka mid ah perform sidoo kale waxay gutaan
technical procedure wax qabad gacanta laga qabanayo iyo sidoo kalena response waxay ka jawaab celiyaan to emergencies ka xaaladaha markaa gargaarka degdega emergencies ka ay ka jawaab celiyaan nurses kaasi markaa waa kuwa u tababaran hawsha markaa hadda aan ku sheegay this field kuwa medical surgical nursing requires wuxuu kaaga baahan yahay ardayow strong critical thinking inaad yeelato ha fikir tolmoon inaad yeelato oo si markaa critical ah inaad u fakari karayso sidoo kale wuxuu kaaga baahan yahay strong communication buu kaaga baahan yahay communication kaaga iyo wada hadalka dadka aad la sameynaysaa inuu markaa mid wanaagsan ahaado ayaa lagaaga baahan yahay oo hadalkaagu waa inuu saddex si waa inuu ku qotomaa waa inuu hadalkaagu clear yahay waa inuu hadalkaagu concept yahay waa inuu hadalkaagu concise yahay hadalkaagu waa inuu clear yahay waa inuu cad yahay waa inuu concise yahay hadalkaagu iyo soo gaaban yahay oo hadal dheer oo iska soconaya aan ahayn waa inuu concept yahay hadalkaaga waa in wax laga fahmayo oo hadalkaagu hadduu conceptigiisa iyo fahamkiisu hadduu adkaado de qofkii bukaanka ayna ku fahmi maayo iyo sidoo kale fiilkan ardayo wuxuu kaaga baahan yahay strong clinical judgment inaad yeelato go'aan qaadasho xagga qofka caafimaadkiisa ku saabsan inaad markaa go'aan wanaagsan aad qaadan karaysan ayuu kaaga baahan yahay xirfadahan haddaba ardayow waxay to ensure hubinayaan patientigu inuu noqdo markaa mid safety ah noqdo iyo sidoo kale recovery inuu noqdo markaa mid markaa bugsashadiisa ay soo fiicnaanaysan inuu noqdo idaalsoo sidoo kale involves wuxuu la xidhiidhaa collaboration wada shaqaynta with other healthcare professional xirfadlayaasha caafimaadka kale inuu markaa qofkaasi la shaqeeyo to promote si loo qaado holistic care it means waa complete care waa daryeel dhammaystiran qofka markaa sidaa loo siiyo camal keliyaata qofka nursingka ay tababaran kuma eka intaa keliyaatee xitaa wuxuu la shaqeeyaa healthcare xirfadlayaasha caafimaadka kale uu laabkii ugu soo horeeyo radiologist-kii ku jiro dhammaan kuwaasoo dhanba uu la wada shaqeeyaa dhakhaatiirtii ay ku jiraan si daryeelka qofka bukaanka la siinaya uu mid markaa u noqdo holistic ah u noqdo oo complete oo dhammaystiran u noqdo doorka uu leeyahay medical surgical nursing ayaynu isleegi doonaa role of medical surgical nurse ardayga markaa medical surgical nursing ka baranaya ama ka ku shaqaynaya providers wuxuu bixiyaa daryeel buu bixiyaa to adult patient isagoo siinaya bukayaasha qaangaarka kuwaasoo experience soo bandhigtay ee way range xaddi aad u badan of medical conditions xaalado caafimaad ah oo ama recovering kaasoo ama ka bogsanaya from surgery qalliin ka bogsanaya day walking waxay ka dhex shaqeeyaan hadday noqoto hospitaalada clinicska ay ka dhex shaqeeyaan clinicsku waa farmasina uu ka tegay cusbitaalna muu gaadhin waa dhakhtarna uu fadhiisan karayaa shabaadhada uu leeyahay ee se inpatient buka markaa lama dhigi karayo waa outpatient bukayaasha outpatientka yimaada dawadooda la siiyo ayaa si toosa markaa loo fasaxaa ee buka la dhigay markaa ma jiraan clinicska cusbitaalkuna markaa isagu inpatientkii buu leeyahay another healthcare settings iyo goobaha caafimaad ee kala duwan haddaba helping patients waxay caawiyaan bukayaasha manage inay markaa ka maareeyaan their illnesseska xanuunadooda inay ka maareeyaan recovery inay ka bogsiyaan from operations qallimada markaa qofkaasi uu ka soo baxo iyo sidoo kalena maintain inay sugaan their health caafimaadka qofka markaa inay sugaan responsibility-ga aynu isleegi doonaa medical surgical nursing mas'uuliyadda uu leeyahay qofka medical surgical nursing-ka marka koobaad patient assessment waa ta ugu horeysa bukaanka ayay qiimeeyaan oo qiimeyn ayay sameeyaan waxa koobaad aad ku shaqaynaysaa dad nursing tahayba marka koobaad waa inaad vital signs garan karaysaa oo aad cabiradii kala duwan vital signs calaamadihii nolosha waa inaad garan karaysaa waa inaad history taking qaadi karayso iyo physical examination inaad samayn karayso waa laba iyo sidoo kale inaad dawooyinkiina aad bixin karayso qaybihii kala duwanaa dawooyinka lagu kala bixin jirayna inaad markaa mid walba si safety aad u bixin karayso iyo si markaa effective ah waxtar leh marka koobaad patient assessment buu sameeyaa qiimeyn buu ku sameeyaa qofka bukaanka regularly si joogta ayuu check patient's vital signs bukaha markaa u qiimeeyaa calaamadihiisa nolosha ee ah blood pressure-kiisa pulse-kiisa iyo markaa respiratory rate-ka iyo temperature-kiisa sidoo kale wuxuu si joogta u hubiyaa sababta miska cabashooyinka markaa uu qofkaasi ka cabanayo iyo guud ahaan xaaladda to detect any change iyo xaalad kastoo markaa isbedel ku keenaysa markaa noloshiisa inuu markaa qofku dhammaan intaasoo dhanba u wada fiirsado xaaladaha markaa inuu qofka markaa u fiirsado uu ka baadho sidoo kale qodobka labaad waxa weeyaan medication administration wuxuu bixiyaa markaa daawada markaa qofka loo soo qoro ayuu bixiyaa wuxuu si safely badbaado leh gif u siiyaa prescribed medications dawooyinkii loo qoray iyo sidoo kalena wuxuu indheeyaa for side effects-ka waxyeelada markaa ay dawadaasi leedahay
oo waa inaad garan karaysaa dawadan aad qofka aad siinaysay waa inaad aqoon u leedahay aqoontaasi maaha bixinteeda kaliya ta maahe xitaa waa inaad aqoon u leedahay waxyeelada ay markaa dawadaasi ay leedahay sidoo kale qodobka ku xiga waxa weeyaan wound care nabarada ay daryeelaan qofka markaa nursingka waa qof markaa ka dhex nabaradii garanaya daryeelistoodii sidii loo daryeeli lahaa garanaya qofka nursingka markaa wuxuu ku sameeyaa nabarkii inuu markaa clean ku sameeyo nadiifiyo dress ku sameeyo nabarka dhaymo u sameeyo iyo sidoo kalena monitoring inuu markaa indhaindheeyo surgical woundska nabarkii markaa qalliinka ah oo ama injury-ga ama dhaawacii markaa indhaindhayn ku sameeyo muxuu ka indhaindhaynaya oo ka fiirinaya wuxuu markaa ka eegaya inuu markaa isbedel sameeyey inuu infection yimi inuu markaa bugsanayo waxyaalahaasuu markaa ka eegaya qodobka ku xiga waxa weeyaan indhaindhayn iyo reporting ayuu sameeyaa qofka markaa medical surgical nursingka bartay waa qof markaa sameynaya indhaindhayn sameynaya sidoo kalena reporting sameynaya wax soo gudbinaya wuxuu observe ku sameeyaa indhaindhaya patientska bukayaasha for complication hadday noqoto cawaaqib xumadooda iyo sidoo kalena wuxuu report gareeyaa significant changes isbedelada muhiimka ah waxa markaa isbedelada muhiimkaana markaa u diiwaan gelinaya oo markaa u gudbinaya to doctorska dhakhaatiirta oo ama health care teamska timamkii kale markaa daryeelka caafimaadka bixinayay kuwaas ayuu markaa u gudbinayaa marka kuwa muhiimka umbad markaa u gudbinaysaa ee si dawo yar oo la bixinayo waxyeeladeedana aad garanayso oo aad markaa og tahay in dawadan laga bedelayn qofka waxyeeladeeda awgeedna oo la yidhi waxyeeladeeda kaliya ta qofka waa in dhulka aad ka dhigtaan de qofka markaa waad u sii wadaysaa way patient education bukaha ay wacyi geliyaan qofka nursingka bukaha ay wacyi geliyaan oo teach waxay baraan patients bukayaasha waxay baraan iyo their families qoysaskooda about wax ku saabsan managing maareynta xanuunkan la maareynayo oo xanuunkii hadduu yahay xanuun koroniga oo qofkii daba dheeraanaya hadduu yahay waa u sheegaan waxyaalaha markaa lagu maareynayo waxyaalaha la iska ilaalinayo waxyaalaha la cunayo waxaas oo dhan way iska ilaalin sidoo kalena medication daawadiiba markaa qofka u sheegayaan oo barayaan waxay barayaan daawadaasi markaa qaabkii loo cuni lahaa iyo sidoo kale post surgery care daryeelka la sameeyo qalliinka kadibna iyadana insha Allah qofkana way barayaan oo qofkii inuu markaa sameeyo in movement sameeyo dhaqdhaqaaq sameeyo la socodsiiyo waxaas waa qalliinka kadib waxyaalaha markaa la sameeyo ka mid tahay iyo sidoo kale lifestyle changes qofka waxay bedelaan balwadiisii markaa ay bedelaan inta badan lifestyle-ka ayaa laba loo qaybiyaa health lifestyle iyo unhealthy lifestyle baa kala jirto balwad caafimaad qabtay mid aan caafimaad lahayn ta caafimaadka qabtay qofka waa lagu sii dhiirigelinaya ee tii kale markaa aan caafimaadka lahayn ayaa markaa qofka lagala talinaya inuu markaa iska joojiyo qodobka ugu dambeeya waxa weeyaan support and comfort qofka in markaa ay taageeraan raaxadiisana markaa ay ku caawiyaan oo profile qofka waxay siinayaan emotional support dareen ahaan ay qofka markaa u taageerayaan iyo sidoo kale waxay ka caawinayaan patientska bukayaashu koob inay la qabsadaan with pain inay la qabsadaan markaa xanuunkooda la qabsadaan inay la qabsadaan anxiety-gooda walwalkooda la qabsadaan iyo sidoo kale discomfortiga raaxad darrada markaa inay la qabsadaan oo waxyaalaha qaar baa markaa loo baahan yahay inuu bukaankaaga aad barto inuu la qabsado maadaama aan waxa laga bedeli karayn hadduu discomfort haddii si loogu talagalay inuu markaa sidaa u jiifsado discomfortina ay jirto raaxad darro ay jirto raaxad darrada waa inuu la qabsadaa thank you be ready to the next lesson-ka xiga insha Allah diyaar u noqda aad baad mahadsantihiin sida quruxda badan aad ula socoteen waxaan idinkaga tegayaa salaanteena islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh